وما سنتهاي ولا الشركة جرائد ما أنت عن قواني وحكسها بحي ضلياش فلنتا إلا يقول كذا لما حمن يحاب وحانا هذلي أضياشي إيو إندرقرتي إيو قدومياشي كوالله يقوله فلنتا دمانتود هذا مكان أرقنا الشركة مدينة إمام رسولانت كوالله دحا أن مدو كشغين إني صدح سنة أن كشغين إني لغشيسين مقالة على تالي ما مقضي وحكا صحيح هاي الشركة سيدة قلمدو أهل السنة والجماعة أنا أي صدح ويكهر أي كالسوني كاللابتين وحا صوبح لأينا أن نكون عن عندها كقرسن خرين وحا صعدة والصحافات كان صارنا مرتوح وقصة لسنا وحا حيواني حباي كغبت الشركة عن مدينة إمام مسلمان تقول لها دحاء على رجل وشي سبحان الله marka taas aan soo saarno marka maxay yihiin waxyaabaha aad ka qabtaan gogasha taalo cadaado waxaan si cad u muujinay in gogasha cadaado taalo loogu talagalay in markii hore loo dhigay in lagu mideeyo gobolada mudug galuud qabkii loogu talagalay ka baxday oo hadda wixii ka dambeeyay ximan yahay aysan ka ahayn aysan qayb ka ahayn waxa socda wixii ka soo baxana aysan shaqo ku lahayn waxyaabaha aadka u diidantiin marka maxay yihiin oo aad go'aanka u qaadato anaga maamul ahaan waxaan maamulkii gogasha u taalay gogasha dhigay dadka soo keenay waxaan aragnay muddo dowladgoboleedyadii saxiixay sida xawaani xaali galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa labadii kale saddex wiil ka hor ay kalsooni kala laabteen guddiga farsamada annaga dadkii guddiga farsamada noogu jiray waa iscaasileen labada xubnood oo ugu jiray shirku sida u socdo markay arkeen hadda guddiga farsamada cid ku matalaysa xaman ma jirto sidoo kaleeto maamulka guud ee xaman gogasha dhigay wax doora oo haba yaraatay ku leeyahay ma jirtaa la yiri markaan aragnay marka waxa socdo inaan waxba ku lahayn waxaan soo saarnay warsaxaafadeed aan ku cadeynayna inaan shirka qayb ku lahayn inaan ku lahayn suuriyidiisa iyo shaqadiisa iyo waxa ka soo bixi doona intaba aan wax shaqo ku lahayn marka taas aan cadeynay hadii ilaahay yiraahdana waxaan rajaynaynaa inaan maamulkayga iyo arrimahayaga aan hore u sii wadano marka maxay yihiin rasmiyan waxyaabaha keenay inaad go'aankan qaadataan muddo dheer aan ka shaqaynayna annagoo inuu shirkaan miro dhalo 3 sano aan ka shaqaynaynay deegaanadeena gobol u dhignay dadkii la isugu keenay iyo la isugu keenay hadda waxa socda waxaan u aragnaa wax wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka ay farmaro ku samayso isku dayayso in afduubto dadkii deegaanadan ku noolaa iyo maamuladii shirkaan saldhiga u ahaa sida xaman yahay oo ku asheeyay dadka gobolada in halkaan isugu yimaadaan amnigoodii nabadgelyadooda iyo horumarkooda laga shaqeeyo markaan aragnay inaan wixii aan ku talagalnay ma wax kale meesha ay ka socdaan ayaan mowqifkaas istaagnay mowqifkaasna waxa qabo golayaasha dhammaan golayaasha xaman yahay hadda wixii ka bilowdana maamulkaas hawlaha socda wax shaqo aan ku leenahay malahan wixii ka soo baxana wax shaqo aan ku yeelnaa habyadaa ma jiro marka waa karta maxaad qabanaysaan hadda mar haddii magaaladiini lagu shiraayo shirada ayaa noo socda waxaan ku leeyahay tilaabooyinka dambe soo socda shirkaas markay dhamaadaan waan soo saareen waxaan ka raali gelinaynaa dadkii beerihii aan halkan ku cashoonay isugu yeernay inay shirka madaxda maamul samaynta u yimaadaan inay kala fiskooda la afduubay oo ay sidii ay rafiicinayeen maahan wax kale meeshaan ay ka socdaan aan aragnay aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa waxaan leenahay afduubka adinka kaliya maahan maamulka gogasha dhigay laftiisa la afduubay afduubkaasna waxaa ka mas'uula wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka